taliyaha saldhigga booliiska magaalada Jowhar Dhamme Maxamed Siyaad Cali Canjeex oo shir jaraa'id ku qabtay saldhigga booliiska Jowhar ayaa ka warbixiyay dagaaladii shalay kooxo hubeysan ay ku soo qaadeen duleedka galbeed ee magaalada Jowhar. Taliyaha ayaa sheegay in kooxdaasi oo ugu magac daray burcad u howlgasha qaabka magafayaasha in dhibaato ay ka wadeen deegaanada ku xiran Jowhar, dadkana ay ka qaadan jireen lacag madax furasho iyaga oo isugu dari jiray ciqaab iyo jirdil. Waa sida uu sheegay taliyaha niman waxaa jira tuuga oo aan soo qabanay maalmo dhaweeyay oo burcada oo baaranaya gaadiid iyo shacab intaba dhibaateeyay oo magafaa waxay sameeyaan dadka waxay ku sameeyaan yaani maaragtay bacay ku shiilan waxay ku sameeyaan waa jirdilaan waxay ka dalbadaan dadkoodii lacag ka dalbadaan haddii aysan hayn akoonka furay ilaahin EVC furay leeyin akoonka furay leeyin intaas markay ka waayaan waxay sameeyaan cidaad waxay leeyihiin cid markay wacaan markaas ka bacdi idoo laga ooyinsiyahay oo la qaylisahay lacagta loo tuura waa magafayaal maahan qabiil maahan macawisley waa ciidan sharaf leh oo wanaagsan oo yaani maartay ciidamada qalabka sida la shaqeeyo nimankan maahan macawisley waa shufto waaye shuftana waxa wax ka qabasho waxaan male waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka reer Jowhar oo fursad ka faa'iideysanayo inay nagala shaqeeyaan dadka shuftada oo dhibaatada ku haya oo gaadiidka u safraayay raashinka u qaadayay dadka masaakiinta oo musaafirka waday dhibaateeyo marka saadarteed iyaga qoladan soo weerartay oo tuugtaana waxaan uga digaa inay yaani maaragtay ay ka waantoobaan waxyaabo ay kula jiraan cid allaale cid shuftaa ee wada gasho ama uma dhibaataysan waxa u dambeeyay saldhigga booliiska ee maxkamadda waxay arki doonaan iyagoo ka tinaysan maxkamadda hortaaga waxay arki doonaan iyagoo saldhigga ku xiran oo bilaa qoray waxaan idin sheegaa cid allaale cid isku daydaa inay yaani maaragtay amnigan iyo ummadan yaani maaragtay nabadgelyada iyo badqabkeeda carqalaysan tilaabo ayaan ka qaadin haddana ciidamada qalabka sida maamulka gobolka steedka dhamaanteen waa u midoobayna waan iska dhicinayna. dhanka kale taliyaha booliiska magaalada Jowhar Dhamme Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa soo bandhigay mid kamid ah raggii dagaalka Jowhar ku soo qaaday oo dhaawac ah iyo hub uu sheegay inay kala wareegeen kooxdaasi. insha Allah waana maartay tilaabo ayaan ka qaadinaa cid allaale cid isku daydo waana kuwana qoriin wadarteen saxaafadda oo soo bandhignay marka saadarteed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad cid falkaas tuuganimo ku jirta ka waantuudo cid aan ku soo qabanay tilaabo aan ka qaadina shacabka gaadiidleyda iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Shabeelle gaar ahaan degmada Jowhar waxaan leenahay in soo ogeysiyo tilaabo ka qaadina meel alaameed ku baartaan waa soo qabanayna oo soo xiriirna dollar insha Allah aad u mahadsantiin. hadalka taliyaha booliiska Jowhar ayaa ku soo aadaya xilli dagaal uu ku dhexmaray gudaha iyo daafaha magaalada Jowhar ciidamada booliiska Hirshabeelle iyo Haramcad oo isku dhinac ahaa iyo kooxo hubeysan oo ka careysan hogaamiyahooda oo kaga xiran saldhigga booliiska Jowhar. dagaalkaasi oo ay ku nafwaayeen shakhsiyaad muhiim u ahaa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Cali Deerey, Idaacadda Risaala, Jowhar.